madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada Galmudug xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay inoo tahay aniga dowladda iyo shacabka Galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dowladda Galmudug waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinii iyo howlmaalmeedkiinii haddana waxaad u timaadeen gogasha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dowladnimada Soomaaliyeed walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah mudanayaal iyo marwooyin ujeedada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah taas macnaheedu ma ahan in ay taladu inaga inagu kooban tahay sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhamaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanazul is-ogolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla mudanayaal iyo marwooyin dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib u heshiisiineed oo dheer markii ugu horeysay wuxuu mira dhalay sanadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Djibouti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca
dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaleynta dalka. muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanta ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar. doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. mudanayaal iyo marwooyin, xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. walaalaha Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa in ujeedada gogoshan ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale waxaan xal ka ahaato dhammaan hawlaha taagan ee u baahan maareynta. mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dawladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadeynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya. mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dawladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin, soo dhawaada, ku soo dhawaada deegaankiinni iyo dalkiinni, ku soo dhawaada taladiinni oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah, is afgarad iyo heshiis loo aayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.